sanadkii 2008 jid weyn ee ku yaala New Mexico ayaa noqday goob oo qarsoodi weyn ka dhacday meed nin afka cajalad looga xiray marana lagu cadaadiyay maxay taas sirta ka dambeysay booliiska markii hore waxay u maleynayeen inuu yahay dil qorsheysan laakiin markii ay si qoto dheer u galeen baarista waxay heleen run la yaab leh oo argagax badan waa sheeko aan ahayn kaliya dhimasho balse si aad ah loo diyaariyay qof noloshiisa ay ku dambeysay qaab aan hore loo arag maanta waxaa idin haynaa mid ka mid ah kiisaska ugu yaabka badan taariikhda dambiyada casriga qorshaha baloonada heliumka waa idin salaam saaxiibayaal soo dhawaada intaanan sheekadeena maanta gudaha u galin janaalka subscribe ideh laagtana ii saar mahadsanidin sheekadeena maanta waxay nageynaysaa dalka Mareykanka 15 Maarso 2008 saacadu markay ahayd 2 saac iyo bar subaxnimo laba qof oo wadada weyn maraya waxay arkeen baabuur dhinaca jidka taagan markay istaageen waxay arkeen wax dhulka yaala oo qof meed ah markay u dhawaadeen runtii waa meed nin afka looga xiray cajalad wuxuu u muuqday inuu dhintay isla markiiba waxay waceen booliska markay imaadeen waxay heleen nin da'diisa ku dhowdahay qontameeyada wajigiisa wuxuu lahaa dhiig waxaana cajalad looga xiray afka waxa kale oo ka muuqday rasaas dhabarka iyo madaxa looga dhuftay dhiig badana halkaas ayuu ku daatay taasoo muujinaysa inuu ku dhintay isla goobtaas marka hore booliska waxay ka shakiyeen labadii qof ee wacday balse baaritaanka kadib waxaa la xaqiijiyay inay ahaayeen dad caadi ah waxaa markaas loo baahday in la ogaado ninka dhintay qofka uu yahay gaariga goobta yaal wuxuu ku diiwaan gashanaa Tom Hickman oo qoyskiisa hore ugu soo warbixiyeen inuu maqan yahay Thomas wuxuu ahaa 50 jir wuxuuna ahaa maamulo maqaayad qoyskiisa waxay sheegeen inuu maqan yahay tan iyo 14 Maarso markii uu ka baaqday shir iyo hotel uu balan ku lahaa markii loo sheegay inuu dhintay qoyskiisa waxay galeen jawi naxdin leh Thomas wuxuu ahaa nin dadka jecel lana dhihi jiray geesiga wanaagsan dhirirkiisu wuxuu ahaa 1.83 qof walba oo la sheekaystay wuu jeclaa Thomas iyo wiilkiisa waxay qorsheynayeen inay ka qayb qaataan dhismo markii booliska ogaadeen meelihii uu maray waxay ogaadeen inay New Mexico aysan ku jirin safarkiisa shaqo sidoo kalena aynan jirin maqaayad halkaasi ku taala goobta meedka laga helo waxay ahayd beer weyn ee ku taala jidka weyn dad goobjoogyaal ayaa sheegay inay gaariga arkeen habeen hore saqdii dhexe laakiin meedka lama arkin ilaa subaxdii 2 saac bar markii gaariga la baaray waxaa laga helay boorsadiisa aqoonsigiisa kaarka bangiga iyo laptopkiisa taasi waxay meesha ka saartay in qorshahani ahaa dhac laakiin kursiga darawalka waxaa loo riixay hore si xad dhaaf ah taasoo muujinaysa in qof kale oo gaaban gaariga waday baaritaan kale kadib meedka waxaa loo qaaday xarunta caafimaadka si loo baaro warbixinta ayaa muujinaysa in madaxay dhabarka laga toogtay afkiisa waxaa lagu cadaadiyay maro cad taasoo muujinaysa in kiis si taxaddar ah loo qorsheeyay laakiin waxa uu yaabka badnaa 10 mitir u jirta meedka waxaa laga helay baloono helium ah waa baloonada yaryar ee hawada heliumka laga buuxiyo kuwaasoo caadi ahaan cirka u kaca haddii gacanta laga sii daayo waxaana ku xirnaa qori fudud qoriga lambarkiisa waa la tirtiray daboolkiisana badbaado ahaan ayaa looga qaaday booliisku waxay ka shakiyeen in qoriga lagu xiro baloono si uu u duulo markii baaritaanka la sameeyay waxaa la ogaaday in qorigan uu hore u iibsaday Thomas laptopkiisa waxaa laga helay raadraac muujinaya inuu internetka ka raadinayay baloon helium sidee wax looga qaadaa iyo dukaamada iibinaya baloonadaas dukaanka Dallas ayaa xaqiijiyay in nin dheer oo weyn soo iibsaday baloono dhowr ah maalmo ka hor baaritaanku waxay keentay shaki weyn ma Thomas laftirkiisa ayaa qorsheynayay inuu naftiisa dilo balse uu ekeysiyay dil markii booliska baareen gurigiisa waxay heleen 2 warqadood oo Thomas qoray mid uu u qoray xaaskiisa Liza midna wiilkiisa warqadda Liza wuxuu ku qoray tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan haddii uu dhinto sida loo isticmaalayo lacagta caymiska noloshiisa oo ahayd $300,000 haddii la dilana ay tahay $600,000 sharciga caymiska ee kiiskan wuxuu ahaa in haddii dhimashadu ay noqoto dil qof kale oo u geystay lacagta la bixinayo ayaa noqonaysa mid labalaaban waa siyaasadda caymiska ee qoraalka taasoo micnaheedu tahay haddii la qoro in qof kale uu dilay qoyskiisa waxay helayaan $600,000 halkii ay ka heli lahaayeen $300,000 warqadii Thomas oo u qoray xaaskiisa Liza wuxuu ku tilmaamay sida ay lacagtaasi u isticmaali lahayd tusaale ahaan in la iibiyo guri si deenta looga bixiyo warqadda wiilkiisa oo u qorayna talaabooyin nololeed iyo in uu mar walba jeclaan doono ayuu u qoray
waxaa kale oo guriga laga helay bir la shubay oo u dhiganta isla qoriga lambarkiisa la xoqay. Taasi waxay caddeysay in Thomas asaga uu isku diyaariyey dil. Ugu dambeyntii, tijaabo laga sameeyey baloonada iyo qoriga ayaa muujinaya in qorshihiisu ahaa in baloonadu ay kaxeeyaan qoriga si uusan booliiska u helin. 20 May 2008, xarunta caafimaadka waxay ku dhawaaqeen in dilka Thomas aynan qof kala dilin, balse uu naftiisa asaga isdilay. Sababtu waxay ahayd cadaadiska caddeynta iyo rajo la'aanta nolosha. Qoyska markii hore way ka soo horjeedeen fikirkaasi, balse ugu dambeyntii way aqbaleen. Kiisku wuxuu noqday mid murugo badan oo muujinaya sida uu qof u qorsheyn karo dhammaadkiisa, isagoona isku dayaya in qoyskiisa kaga tago caymis lacageed.